dastuuri ah oo aanu ku dhaaranay inaan sidiisa u fulino qodobka 68aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah waxa uu samaysanayaa xeer hoosaadkiisa kaas ayaana siinaya ka qaybgal buuxa oo xubnihiisa ah waa arrin dastuuriya weeye xeer hoosaadku wuxuu sheegayaa ilaalinta iyo ku dhaqanka xeer hoosaadku inuu yahay arrin sharci ah guddoonkuna inuu yahay ka laga rabo inuu fuliyo golaha shacabku wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda golaha shacabku sababta asagu isla xisaabtamaa mar walba xukuumaddu hal xildhibaan oo idin ka mid ah ayaa awood u leh inuu intaas soo fadhiisiyo 276 baana tihiin subax walba haddaad tidhaahdaan halkaas waa inay taagnaadaan awood baa u leedahay laakiinse annaga oo guddoon ah jidka la marayo inuu habraac saxa yahay ayaa nalaga rabaa inaanu idinku dhaqno qofka wax xisaabinaya asaguna waa inuu isla xisaabtamaa jidka aanu kula xisaabtamayno ma soo marnay waa su-aal inaan iska saxno wixii khalad ah oo annaga guddoonka xaggayga ka yimaada ama guddi ka yimaada ama golaha guud ahaan ka yimaada ayaa muhiim ah warbixin guddi marka golaha la keenayo waa inay soo martaa guddiga joogtada ah qodobka 12aad faqradiisa ga ayaa sheegaysa guddiga joogtada ah wuxuu ka doodaa go-aanna ka gaaraa warbixinada guddiyada ee looga doodi doono golaha ma aanaan soo marsiin haddaan soo marsiin lahaynna haddii muran ka jiro halkaasuu ka soo bixi lahaa waa gaf annaga guddoonkaa naga yimid idinkaana idinka raaligelinaya qodobka 2 warbixinta guddi soo gudbiyo qodobka 62aad faqradda 2 waxay sheegaysaa waa inay ku cad yihiin magacyada xubnaha guddiga ee ka qayb qaatay warbixinta iyadoo aysan ku qornayn oo aysan ka saxiixnayn inaan guddoonno inaan hortiina keenno sharci darra annaga nagu tahay waana idinka raaligelinaynaa waxa uu faqradda 3aad qoraysaa waa inay warbixintu waa inay caddayso arrinta laga shaqaynayo iyo xogaha uu guddigu helay waa inay ku lifaaqan yihiin hal xog oo uu guddigu helay iyo hal lifaaq oo warbixinta ku jirtaa ma jirto inaan aqballo iyo inaan idiin soo gudbinana sax ma ahayn waxaa khasab ah isla faqradda 5aad waxay sheegaysaa warbixinta waa inay ku lifaaqan yihiin waa inay ku taxan yihiin magacyada dadka la soo waraystay iyo hay-adaha la soo waraystay ayaa khasab ah ilaa wuxuu waa warbixin ah guddigu ma asagaa abuuranaya meel waa inuu ka keenaa qodobka 26aad wey waa 62aad weeyaan waa faqradda 5aad ee cinwaankeedu uu yahay warbixinada guddiyada iyadoo aysan ku taxnayn hay-adihii iyo shakhsiyaadkii xogtaas laga keenay inaanu aqballo ma ahayn inaan idin hor keenana ma ahayn khaladkaas annagaa qaadanayna guddoonkaa waxaan idiin sheegayaa guddiga maaliyadda oo ah guddiga ugu shaqada badan golaha shacabka waxa weeye dalool baa ka soo baxay aada iyo aada u weyn waxaa taalla horteenna inaan la fulin qodobkii sheegayey in oo go-aanada guddiyada waa in lagu gaaraa cod aqlabiyad ah faqradda 11aad waxay sheegaysaa waa inuu quorum-ku dhan yahay marka go-aan la gaarayo cod qaraar ama go-aan intaba wareer raalli ah walaalow nidaamka dhowr mar dambe hadda hadalkayga soo dhex gasho waxaan kuu dirayaa ansha waxaan sheegayaa waxaan meeshan ka maqlayay whatsapp baan ku sheekaysanaa iyo facebook baan ku sheekaysanaa intaanu kala tagno hadda guryaha intaan kala tagno whatsapp baan kusoo codaynaa waxa weeyaan dad baan la xisaabtamaynaa subax walbana waan la xisaabtamaynaa
awood baana loogu leeyahay sax iyo khaladba marka wax la weydiinayo maadaama ay ka jawaabaan laakiinse annaguna waa inaan annaguna isla xisaabtanaa guddoonkana lala xisaabtamaa guddigana lala xisaabtamaa annagu wasab inay ku codeeyaan xeer hoosaadku ma qabo ma garanta hoolay baan u samaynay meel ay ku shiraan ma garanta waxaanu siinay clerics iyo xoghayn baanu siinay ma garanta waxa weeye waa inay shiraan guddoomiyaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay inuu tiriyo quorum xoghayaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay asagoo isticmaalaya xoghaynta shaqaalaha ah in uu ogeysiiyo xubnaha inuu shirkaasi jiro ajanduhuna uu yahay codbixin waxa weeye taas waxaan kala xisaabtamaynaa guddiga in ay shaqaday qabteen iyo siday shaqada u qabteen iyo warbixinta siday u soo diyaariyeen inuu xeer hoosaadka waafaqsan yahay iyo inuusan waafaqsanayn waxa weeye kulan walbay qaataan ajandihiisuna waa qoran yahay xoghayntaa qorta annagana na hoos yimaadaan ayaga ma hoos yimaadaan waxa weeye ajanduhu wuxuu ahaa inta xildhibaanay soo fadhiisatay sida loo codeeyey kulligeed waxa weeyaan annagaa baaritaan kusoo samaynayna haddii ay guddiga ku soo baxdo waa kuwa halkaas isku khilaafayeen hadday ku soo baxdo inay nidaamkii iyo xeerosaadkii ku gafeen annaga guddoonkaa la xisaabtamayna annagaana siinayna jawaabtooda idinku malihidin waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed in aan waxa weeye ka raalligeliya haddii dhaftoodu ishaysada dhexdooda ah ay maqleen haddii ay is-eedayn maqleen haddii ay isjiidjiid maqleen waxa weeye golo shacab oo ay ku kalsoonaan karaan ayay leeyihiin oo uu waajib ka saaran yahay inay la socdaan inay kormeeraan hay-adihii waxa weeye fulinta ahaa gaar ahaan kuwii maaliyadda u xisaabsanaa waxaan idiin sheegayaa waxaan ka warqabnaa oo uu guddiga maaliyaddu ka warqabaa transaction waxaa la yidhaahdaa dhaqaaq xisaabeed hal transaction oo meel intuu ka baxo ama hal jeeg inta la qoro oo baxa oo uusan guddigani ogeyn ma jirto $100 ha ahaadee guddigu $1 hadduu soo galana waa ogyihiin fadhigooday ku ogyihiin $1 hadduu baxana fadhigooday ku ogyihiin marka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay xoolahooda iyo waxa deeq lasoo siiyo iyo canshuurta laga ururiyo meeshay marto waa la soconnaa annagaa la soconna ilaahay hortiisa wixii ku khaldamana annagaana la weydiinaya annagaana nimankaas u qabsanayna shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay kalsooni ku qaba golihiina shacabka xukuumaddaasna annaga ayaa dirsanay annagaa kalsooni siinay la xisaabtankoodana annagaa iska leh waxa miidiyaha iyo warbaahintu ay faafinayso oo marka oo la yidhaahdo kelmaddii uu hadda guddigu sheegaya ahayd 8 bilood sidaas ma ah ay miidiyuhu qorayaan 42 milyan baa la luunsaday oo la qaatay macnaheedu waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed inaanan dib loo aaminin macnaheedu waxa weeye shacabka soomaaliyeed inaysan cashuurna siin weeyo macnaheedu waxay tahay ganacsatada soomaaliyeed inaysan kalsooni dambe aysan lagu qaadin weeyaan warbaahinta xorriyad baa la siiyey laakiinse xor uma aha inay wax been ah sheegaan golaha shacabkani ma uusan sheegin in 42 milyan oo dollar la luunsaday ma sheegin in 20 milyan dollar la luunsaday ma uusan sheegin in $1,000 la luunsadayna midnaba ma uusan sheegin haddii 2018 xisaabteeda laga hadlayo xisaabo xir baa jira oo muddaysan oo sanad walba sanadka ku xigaa la xisaabiyaa qodobka 7aad ee xeeroosaadka iyaga ayaa qeexaya waxaan idiin sheegayaa dalkani wuxuu gaaray heer dowladnimo oo laysla xisaabtami karo hay-ado lala xisaabtami karo waawaysan jirinba meel fiican baan maraynaa xukuumaddii waa noo hoggaansantaho waa kuwa halkaa fadhiya annaguna maadaama aan nahay hay-addii ugu sarreysay ee hubinaysay ku dhaqanka sharciga inaan sharcigeenna ku dhaqanno annagaana laga rabaa inaanu eedda aan leennahay inaan qaadanaana laga rabaa hortiina aan ka qiray in aan warbixintan dalool hadduu leeyahay annaga ahayd inaan qabanno ma ahayn guddigu inuu hortiina maanta ku murmo ma ahayn raalligelin baan idankeeda ka siinaynaa shacabka soomaaliyeed baan ka siinaynaa dalkana meel fiican buu marayaa hawl adagoo miisaaniyadda 2019 noo taalla ansixintii
iyo ka doodistii waxaa noo taalla xisaabo xirkii 2017 yaynaan waxaan jirin ku mashquulin yaynaan hay-adaheenna isku burburinin yaynaan kalsoonida ka qaadin shacabka soomaaliyeed intaas waxa weeyaan warbixintan habraacii uu xeerosaadku qorayay annagu ma aanaan soo marsiinin waxa weeye umana dhammaystirna xubnihii soo gudbayeenoo kuma qorna dadkii lasoo waraystayna kuma lifaaqna waxa weeye waxyaabihii lasoo baaray cadeymahoodana kuma lifaaqna muran hadduu soo galay qaabka loogu soo codeeyey iyo kuwarankiisana waxa weeye annagaa guddoon ahoo baaris ku samaynayna kalena xisaabtamayna ciddii mas-uuliyaddaas iska lahayd saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaasuu ku xiran yahay soo qaadistaha iyo warbaahintu ay faafinayso oo marka oo la yidhaahdo kelmaddii uu hadda guddigu sheegaya ahayd 8 bilood sidaas ma aha ay miidiyuu qorayaan 42 milyan baa la lunsaday oo la qaatay macnaheedu waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed inaana dib loo aaminin macnaheedu waxa weeye shacabka soomaaliyeed inaysan cashuurna siin weeyo macnaheedu waxay tahay ganacsatada soomaaliyeed inaysan kalsooni dambe aysan lagu qaadin weeyaan warbaahinta xorriyad baa la siiyey laakiinse xor uma aha inay wax been ah sheegaan golaha shacabkani ma uusan sheegin in 42 milyan oo dollar la lunsaday ma sheegin in 20 milyan dollar la lunsaday ma uusan sheegin in $1,000 la lunsadayna midnaba ma uusan sheegin haddii 2018 xisaabteeda laga hadlayo xisaabo xir baa jira oo mudaysan oo sanad walba sanadka ku xigaa la xisaabiyaa qodobka 7aad ee xeerosaadka yaga ayaa qeexaya waxaan idiin sheegayaa dalkani wuxuu gaaray heer dowladnimo oo laysla xisaabtami karo hay-ado lala xisaabtami karo waadaysa jirinba meel fiican baan maraynaa xukuumaddii baa noo hoggaansantaho waa kuwa halkaa fadhiya annaguna maadaama aan nahay hay-addii ugu sarreysay ee hubinaysay ku dhaqanka sharciga inaan sharcigeenna ku dhaqanno annagaana laga rabaa inaanu eedda aan leennahay inaan qaadannaana laga rabaa hortiina aan ka qiray in aan warbixintan dalool hadduu leeyahay annaga ahayd inaan qabanno ma ahayn guddigu inuu hortiina maanta ku murmo ma ahayn raalligelin baan idinkeeda ka siinaynaa shacabka soomaaliyeed baan ka siinaynaa dalkana meel fiican buu marayaa hawl adagoo miisaaniyadda 2019 noo taalla ansixintii iyo ka doodistii waxaa noo taalla xisaabo xirkii 2017 yaynaan waxaan jirin ku mashquulin yaynaan hay-adaheenna isku burburinin yaynaan kalsoonida ka qaadin shacabka soomaaliyeed intaas waxa weeyaan warbixintan habraacii uu xeerosaadku qorayay annagu ma aanaan soo marsiinin waxa weeye umana dhammaystirna xubnihii soo gudbayeenoo kuma qorna dadkii lasoo waraystayna kuma lifaaqna waxa weeye waxyaabihii lasoo baaray cadeymahoodana kuma lifaaqna muran hadduu soo galay qaabka loogu soo codeeyey iyo kuwarankiisana waxa weeye annagaa guddoon ahoo baaris ku samaynayna kalena xisaabtamayna ciddii mas-uuliyaddaas iska lahayd saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaasuu ku xiran yahay soo qaadis dambena ma leh hal daqiiqoo dambe oo golahan looga khasaarinaya warkiisana ma jirto saasuu ku xiran yahay kaas